باي مرة خبر مقعي فايسة سيدو الشيخ علي فايسة waxaa dhigata iskoolka sama فايسة xakii degantaa adiga waxaan deganahay degmada Madiino ka war iskoolka mar walba wuxuu ku dhex yaalaa meel furun ah in laba koox ka soo horjeeda dawladda ku mirgaarka Soomaaliya hana qodaan ulka al-shabaab iyo islaam markii weerar ku soo qaadaan dawladda ku mirgaarka Soomaaliya taranka sidoo qaa marka iskoolka soo aadid cabsida ku gashay waqtinta wallahi waxaas wax uma aragna maxaa yeelay waa la qabsan barnaamijyada socda maanta anagana waxaan ku tala galnay inaan u dhabar adeegno waxbarashadeena waxaan mar walba u taaganahay inaan wax ku barano dawladda inkastoo magaalada ay aad u qariban tahay haddana waxaan u dhabar adeegnaa sidaan waxbarasho fiican ku leeyahay okay mar walba dagaalaha ku soo noqday magaalada Muqdisho iskoolka hortiisna waa furun eriga wuxuu kala mar afar waxa degan ciidamada dawladda iyo ciidamada Amisom madaafiic ma ku soo dhacay iskoolka weli madaafiic ma soo dhicin maadaama arday muslimiin ah oo dad islaam ah dhalay maxallaha magaaladan aad u qariban tahay ilaahay uu naga badbaadiyay haddana waxaan rajaynaynaa in mar kale uu ku soo dhico iskoolkeena lianna magaaladan inkastoo ay qariban tahay haddana balaayada wala hadday maanta ka maqan tahay la walaalkaada ku maqan tahay iskoolaad badan maadaama ay soo xirmeen ay ku dhaceen waxyaabo badan oo hubiyaal ah keen ilaahay waa ka badbaadiyay haddana waa arkaysaa inaan ku fadhino iskuulka imtixaankii ugu dambeeyay ee finalka okay maxaa dareentay markii hotel Shamo qarxa ka dhacay oo arday badan ku dhimatay iyo qaarna ku geeriyoodeen tarankaas sidoo noqday wallahi dareenkeena aad ayuu u xumaaday haddana waxaan ku dhabar adeegnaa in aan ku barano magaaladan saan u qariban xataa waxaan rajaynaynaa inaan jaamacado dibadaha ah waxaan jecelnahay inaan ku barano jaamacado iyo waxyaabo maxallaha muhiim ah sida bareefadyaha dhihin macaahidda dhihin si aan ugu barano magaaladan iyadoo qariban waxaan rajaynaynaa ardaydii bedeli lahayd magaaladan oo dhammaanteed aad u qariban dadkii hore hadday ka fikiri waayeen waxaan jecelnahay ardayda maanta inay u dhabar adeegaan ayna ka fikiraan magaaladan siday u nadaamsami lahayd horumarkeeda iyo wanaaggeeda iyo sharafteedana aan dib u soo celino hadduu ilaahay okay ka waran imtixaanka maanta imtixaanka hor maanta imtixaanka walaa aad ayuu u faraxsan lahay maadaama imtixaan uu yahay kan horta imtixaan lama dhaho imtixaan adduunya leh waay laakiin maadaama aan soo dhabar adeegayna 4 sano aan nahay ardaydii lagu bilaabay iskuulka waxaan ku faraxsanahay inaan maanta u fariisanayo iskoolka imtixaankii ugu dambeeyay aan ka qalin jabin lahaa aan u gudbaayo jaamacad okay jaamacadda Muqdisho maartayna ka dhigay rajo kaleeda ama mise dibadana ka dhigay waxaan jeclahay inaan dhigo Muqdisho gudaheeda waliba jaamacadda Banaadir jaamacaddii ardaydeeda leeyahay bulshayahay aqoontiyo ku dadaala waxbarashada bulshayahay aqoontiyo ku dadaala waxbarashada bulshayahay